mahad iska leh oo aan u mahad celinaynaa culimada ajillada oo inooga yimid khaarijka Örebro, Stockholm, Göteborg, Shopping, Lindesberg, Nora iyo meelo badan oo magacyadooda hadda aan wada halkaa ku tirin karinin. intaa dhamaanteed dad zaa'iriina oo muxibiinta nabiga ayaa nooga yimid. aad baan ugu mahad celinaynaa kasoo qaybgalka ay nagala soo qayb galeen xafladda mawlidka nabiga sallallahu alayhi wasallam. waxaan mar labaad u mahad celinaynaa dadka ina soo ajiibay oo aan u wacnay iyo intii soo qaban ku bixisay. dhammaantood dadkaas waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa nala xusuusiyey nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallamna waa nala xusuusiyey. liajlihi baan halkaan isugu nimid iyo xubbigiisa waxaa nagu filan inta nala xusuusiyey. dheerayn kale uma baahna runtii iyo faahfaahin kaste. qof kaste iimaankiisa halkaan keenay saalimka ah ayaa u faahfaahinayo. baraarujin iyo boorka jafna waa nagula sameeyey. culumadiina baraarujisay khayr allaha ku jizeeyo. kuwa aamusan oo iska soo wareejiyay mikrofonka oo sheekh cali uu ka wen yahay. sheekh cali waa sheekh weyn weeye. anigu maaragtay xirtiisaan ka mida maaha. anigu mashaa'ikhda Örebro dhalinyarada joogta anigu ka mida runtii. waa sheekh nagu cusub oo nagu soo biiray aqoonna leh ay kana muuqato. laakiin liajli tawaaducihi buu mikrofonka u wareejiyay. anigu ma aanan mudnayn iina magacaabay. sheekh cali iyo mashaa'ikhda kale dhammaantoodna waan u mahad celinaynaa kolley iyo wixii ay noo sheegeenna inaan qaadanaan isu dardaarmayna. waxaa jira hortuu adduunka min ladun nabiyullaahi aadam laga soo bilaabo ilaa yowmina haadaa xaq iyo baatilku way jireen labadu. loolan baana ka dhexeeyay. qofkii ilaahay hanuuniyey unbaana hanuunsan. dadka ilaahay ku xiran qofku inuu laasimo rususha xikmadda ilaahay uu usoo dirayo subxaanahu wa tacaala waa in ilaahay iyo khalqigiisa ay isku xiraan. wax rasuulka ku tacalluqo qofka kaa xiran rasuulka inuu kaa gooyo rabaa ilaahay inuu kaa goynaya. taasna waa intay culimada nooga hadlayeen. waxaad markaa ku dadaashaan diin cusub annaga nooma imaan. kitaabkeenna waa qadiim. rasuulkeenna maxamed aha lagu soo dejiyey sunnadiisina waa qadiim. waxaa noo iftiimiyeyna waa culimada. waxaan markaa kusoo gabagabeynayaa qowlkii cabdullaahi ibni mascuud. dadka hadda annagana tashwiishinaya markii la fiiriyo waa dad dhammaantood ku wada sugan nolosha fii qayd alxayaa intooda badan. cabdullaahi ibni mascuud markuu dardaarmayay wuxuu yidhi oo aada garanaysaan: alaa laa yuqallid axadukum diinahu rajula fain aamana wain kafara kafar fain kuntum laabudda muqtadiin faqtaduu bilmayiti laa bilxayi faina alxaya laa tu'manu calayhi lfitna. waxa uu yidhi cabdullaahi ibni mascuud, qofkii raba in diinkiisa qof u saarsado oo wasiilo nebi maxamed kaga dhigta sala allahu calayhi wasalam ha saarsaduu yidhi. hortu qofna yuusan qof diinkiisa u saarsanin buu yidhi. alaa laa yuqallid axadukum diinahu rajul. hebel baan anu ku xirnahay fa in aamana wa in kafara kafar. hebel hadduu rumeeyo ilaahay waan rumaynayaa, haduusan rumayna waa ka baxaya. isagaas unbaan raacsana. waxa la raaca waa ilaahi iyo rasuulkiisa. qofka kuu keenay waxa lagu raacana waa xiridda ay kugu xirayaan. hadday laga maarmaan noqotuu yidhi in aad dayataan oo qof culimo aad ku dayataan faqtaduu bilmayiti laa bilxay. waxaad ku dayataan buu yidhi dadkii dhintay oo raadka iyo aharka diinka ku lahaa. waa culimmadii haddana loo tirinayay oo mashaayikhdu ay noo tirinayeen xaafid fulaan xaafid fulaan xaafid fulaan lalaha. nin kasta siiradiisa ha laga sheekeeya haddii la yidhaahdo kutub bay buuxinaysaa. wax caqligeenna ka weyn bay noqonaysaa nin kasta taqwadiisii iyo markii laga sheekeeyo sifaadkiisii iyo ta'liifaadkiisi. fa ina alxaya laa tu'manu calayhi lfitna. qofka nool waxaan aamin looga ahayn fitna.
qof aysan taariikhdiisa dhamaanin qalbigiisana ilaahay subxaanahu wa tacaala suu noo sheegay qalbigu waa gadgadoomaa nabigeena maxamed yaa muqalliba alquluubi thabbit qalbii calaa diinik ayuu dhihi jiray qalbiga qof kasta ku jira waa gadgadoomahaya allaha diinka qalbigeena ku sugan marka dardaaranka culimmada taariikhdooda diinka islaamka ay ku dhammaatay markhaatigoodina uuna dhex yaallo maxaa yeelay ummaddu markhaati weeye qof walba markay taariikhdiisa dhammaato wixii uu ka tegay waa markhaati u ah iyo siiradiisa kuwa inaan raacno kuwa mudan waa kuwaas kuwaana waa kuwii nebi maxamed jeclaa sala allahu calayhi wasalam waa kuwii diinta dhaxalkeeda xadiga waafirka ah ku lahaa waa kuwa ka sheekeeyey mawliidka nebiga ama kutubta ka alifay nimaan laba iyo saddex maaragtay kitaab ka alifin waa yara ragga laga sheekeynay riwaayad kale ayaduna waxay ahayd man kaana mustannan falyastanna biman qad maat fa ina alxaya laa tu'manu calayhi lfitna waa isla riwaayadda cabdullahi ibn xuusi kale lagu warinay qofkii dayan hayo ha ku dayda dadkii taariikhdooda diinka islaamka ay ku dhammaatay maxaa yeelay qofka nool aamin loogama ahan fitna inay kusoo dariso dhammaanteen marka waxaan isu dardaarmaynaa ilaahay dardaarankiisa iyo rasuulkeena maxamed ee dardaarankiisa ilaahayna waxaa nagu xiraya waa culimadii waaweyneyd oo ajillada ahayd oo kutubtooda aanu xambaarsannahay qof kaste oo cilmi u leh arrinkaasi waxaa dadka nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam ixtifaalkiisa ama arrimahaan oo kala durahayo isaga laftirkiisa isradinaya sheekha u horeeyo oo kitaabkiisa uu kalkasho ku wato hadduu yahay qof kitaab wato sheeganaya kitaab ama guriga u yaallo intooda muctabarka oo dhan waa intii bannaysay arrintaan mid kitaab ka qoray iyo mid tegi jiray iyo mid ammaanay iyo mid u jadbaysnaabay ahayd marka insha allahu tacaala dardaarankeena marka waxaan ku gabagabaynaynaa intay culummadu sheegtay allaha noo maaragtay nagu anfaco ilaahay subxaanahu wa tacaalana ha naga aqbalo ixtifaalka iyo tacdiiminta nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala aqbalo ayaa agtiisa qiimo kale taasna ilaahay baan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala wacdi kale uma banaano dadka qulubtooda waa la buux wax kalena sii geli mahayo luqmaanulxakiim waxa uu yidhi walaa taktafi idaa kufiitu miyaanan kaaftoomin mar haddii la xigmadii iyo wixii uu sheegi jiray maxaad u aamustay baa kale maaragtay markaan rajiyey ilaahay agtiisa macdal ka gaar